Daawadayaasheeda qiimaha iyo qaayaha leh oo ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aynu doonayno caawa inaynu kaga hadalno Somaliland siyaasiyiinteedu maxay wax u bedeli waayeen doorashadeeduna maxay u keeni weyday isbeddel muuqda oo dadka noloshooda wax ka beddela. Xilligan waxaa la gaadhay xilligii loo tartami lahaa mar labaad iyo madaxweynenimada. Barnaamijkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisaaq Axmed Jaamac. Halkaad naga daawanaysaanna waa Seylac 24 daawasho wanaagsan. Sida aad la wada socotaan Somaliland 5 sano ama 7 sano waxaa ka dhaca doorasho madaxweyne, waxaana ka dhaca doorashooyin baarlamaan iyo golo deegaan. Laakiin bulshadu wixii ay ka filaysay doorashadaasi way ka soo bixi waayeen. Sida dad fara badan leeyihiinna waxa weeye waxaan dhisnayn xididkii ay dadkana ku iman lahaayeen, dad nadiifina ay ku soo bixi lahaayeen. Dadka qaar waxay sheegaan in arrintu ay tahay maruun madaxweyne indhaha. duruufaha maanta Somaliland ka jira ma muuqdaan inay isbedeli doonaan sanadada soo socda haddii aan la bedelin cidda la geynayo goobaha doorashada. Saddexda xisbi ee iminka Somaliland ka jira oo 10 jirsanaya sanadkan haddii Ilaahay ka dhigo, iyagana waxaa la gaadhay xilligii la bedeli lahaa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu sheegay in xisbiyadu furan yihiin, isaga laftiisuna aanu weli sheegin inuu soo sharaxi doono iyo inaanu madaxweyne dambe usoo istaagi doonin. Laakiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland muddo 30 sannadood siyaasadda Somaliland uu dhex joogay, waanu arkayay halkay ka qaloocan tahay. Laakiin markuu madaxweyne noqday weli baahidii way jirtaa. Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo isagana lagu tiriyo siyaasiyiinta xilligan ugu waaweyn haddii uu siyaasadda dib ugu soo noqdo, inkastoo ay dadka qaar saadaalinayaan inuu isaguna leeyahay xilligan xisbigaygii baan dib u soo istaadhaya. Waxaa jira 3 xisbi qaran, ucid, kulmiye iyo wadani, oo aan dhexdooda aanay ka jirin dimuqraadiyad ay dadku kuu sheegayaan inay run tahay. Saddexdooduba waxay ku tiirsan yihiin beelaha ay ka soo kala jeedaan guddoomiyeyaashoodu. Musharaxiinta xisbiyadu soo saaraan iyo qaabka loo qiimeynayo xisbiyadu waa aragti qabiil, waxaana ku dhammaanaysaa aragti qabiil. Xisbiyadu waxay dhaqaale ka helaan qabaa'ilka ay ka soo kala jeedaan ama kolba guddoomiyaha markaa uu yahay qabiilkiisu ayaa dhaqaale u hura siiyana. Waa la isku dayay in la tijaabiyo oo wax laga bedelo, laakiin siyaasiyiinta joogta xisbiyadu way ku guuleysan waayeen inay bedelaan dadka aragtidoodii ahayd sidee baynu u dhisnaa xisbi la wada leeyahay si ay u timaado Somaliland la wada leeyahay. Dad fara badan waxay leeyihiin waan ka daalnay 100 nin oo kolba xisbi isku soo shuba. Madaxweynuhu xilligan wuxuu furay xisbiyadii, laakiin xisbiyadu furay maaha dad meel kale ka imanaya, waa 100kii nin ee ku jiray xisbiyadii hore ayuunbaa kolba xisbi u wareegaya, kolbana dadka usoo xidhanaya shaadh kale. Ma jiro siyaasi wax iska hakranaya. Siyaasi kasta wuxuu doonayaa inuu guul ka gaadho doorashadan iyo siyaasaddan u galay, laakiin dhibaatada keliya hortaagan waxa weeye aragtidii wax ku bedeli lahaa ma sitaan siyaasiyiinta Somaliland xilligan. Dadka qaar baa leh haa, dadka qaarna waxay leeyihiin duruufta ayaabayna baraysa. Dr. Maxamed Cabdi Gaboose 1997 ayaa waxaa loo magacaabay guddoomiyihii guddida abaaraha uu berigaa cigaal uu madaxweyne ahaa. Waxaanu yidhi mar dambe Ilaahay kama baryayo inaan noqdo guddoomiyaha guddida abaaraha. 25 sannadood kadib, Somaliland waxaa ka jirta xilligan abaar aad u daran oo la mida tii Somaliland ay soo aragtay 2014 iyo 15. Waxba isma bedelin. Inkastoo wasiirka biyuhu uu sheegay 500 oo ceel in la qoday, haddana xaaladdu way ka sii darantay. Maadaama Somaliland ay weli kari lahaydba waxyaalihii asaasiga ahaa inay dadka u qabato, waa maxay dadku waxay ka doonayaan doorashooyinka? Ma in kolba reer xisbi noqdaa? Ma in kolba xisbi la isugu tagaa? Ma in kolba qofkii madaxweyne jeclaada madaxweyne laga dhigaa? Su-aashaas waxaan u deenayaa dadkaana ka jawaabi doona. Kol haddii noloshii asaasiga ahayd, waxbarashadii, caafimaadkii, biyihii aanay midna dowladdu aanay wax ka bedelaynin oo ay tahay wax qofka iyo waalidiinta sugaysa inay la tabcaan oo la tacaalaan. Waa maxay aragtida aad u doonayso inaad madaxweyne noqoto? Ma maruun madaxweyne indhahaba? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa anigoo Cabdisaaq Axmed Jaamac idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
baygu baxaye kaariya xanuun iyo kurba iyo dhibaato iyo kulay baygu baxaye kursigaasan caashaqae madaxweyne koridhahaye kursigaasan caashaqae madaxweyne koridhahaye jeclaato kalkan way gu dheer yahay